kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Warlalis Media fadlan haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka aanu ku leenahay ee Warlalis subscribe saar si markasta wararka ugu waaweyn ee dunida dacaladeeda ka dhaca gaar ahaan Soomaaliya ay ku soo gaaraan qodobada maanta aad ku daawan doonto warkeenana waxa ugu waaweyn magaalada Garowe ayaa ciidan looga soo daabulaya diyaarado kuwaasi oo la doonayo inay waardiyeeyaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kaasi oo la rumaysan yahay berri inuu soo gaari doono magaalada Muqdisho. magaalada Jowhar waxaa ka dhacday arrin la yaab leh taasi oo ah in aabe uu dilay wiilkiisa kadibna marka uu dilay uu ku riday wabiga. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay istaka ka gudbisay xafiiska qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya oo loo yaqaan UNSOM. qodobada kale ee aad daawan doontaan waxaa ka mid ah taliyihii hore ee nabad sugidda Sambaloolshe oo sheegay in ay isku qasmeen ama ay isku dhex milmeen madasha xisbiyada qaran iyo nabad iyo nolol. iyo sidoo kale nin Soomaali ah oo diiday madaxweyne Trump ka diiday inuu la kulmo kadib markii Trump uu ka codsaday kulankaasi. dhanka ciyaaraha marka aynu fiirinana Lionel Messi ciyaaryahanka weyn ee u ciyaara Barcelona ayaa maanta ka baaqsaday tijaabo loo sameeyay ciyaartoyda u dheesha kooxdaasi oo laga baarayay cudurka COVID-19. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan Warlalis fadlan haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka aynu ku leenahay subscribe saar markana ku soo dhawaada qodobada idin sheegay oo faahfaahsan aynu ku bilaabano. diyaarado ayaa ciidan ka soo daabulaya magaalada Garowe iyaga oo keenaya ciidankaasi magaalada Muqdisho. ciidankan ayaa la sheegay in ay waardiyeen doonaan Saciid Cabdullaahi Dani oo magaalada Muqdisho soo gaari doona maalinka berri ah kaasi oo la shiri doona madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dani ayaa la rumaysan yahay inuu aad uga shakisan yahay dowladda federaalka ee Soomaaliya isagoo oo aaminsan in qalalaase amni loo geysan karo haddii uu magaalada Muqdisho yimaado isagoo ciidan la'aan ah taasi oo ku qasabtay in ciidan badan uu ka soo daabulo magaalada Garowe kuwaasi oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ugana soo horeeya iyaga oo tagi doona goobaha Saciid Cabdullaahi Dani uu ka tagi doona magaalada Muqdisho si amniga ay u sugaan. su'aasha ay dadka shacabka isweydiinayaan ayaa ah sida ay xal ku gaari karaan laba mas'uul oo kala baqaysta kuwaasi oo ciidamo midba midka kale uu ka waardiyanayo. waa tahay daawadayaal Warlalis Media ayaa weli naga daawanaysaan fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar si markasta uu kuu soo gaaro wararka ugu cusub ee dalka ka jira. aynu fiirino markan Soomaaliya ayaa hadal astaka ah waxa ay ka gudbisay xafiiska qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya ee loo yaqaan UNSOM. Abuukar Baale oo ah danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ayaa hadal uu ka jeediyay munaasabad hal sano loogu dareeyay ka shaqeynta xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya inuu hal sano ka sii shaqeeyo. waxa uu sheegay in xafiisku uu ka falceliyo kaliya ah waxyaabaha markaasi taagan taasna aysan ahayn wax loo baahan yahay. Baale ayaa yiri inkasta oo ay jiraan horumar ay sameeyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay xafiiska UNSOM waxa uu muuqdaa inuu isbedelayo hab aan la jaan qaadi karin dadaalada iyo guulaha muuqda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sameynayso. tani waxay horseedaysaa in waxqabadka howlgalka UNSOM uu noqdo mid ka falceliya kaliya dhacdooyinka oo awood aad u yar u leh inuu taageero siyaasadda iyo midda farsamo ee dalka ka jirta siiyana cadaaladda aasaasiga ah taageero ujeedooyinka dhismaha dowladda federaalka ee Soomaaliyana uu wax ka taageero ayuu yiri Abuukar Baale. dadaalada dib u dhiska ee aan wadno Soomaaliya waa inay noqdaan kuwa ay Soomaaliya hogaamiso oo loo arkaa kuwa ay Soomaaliya hogaamiso. sidaas darteed waxaan ku baaqaynaa in la dhowro madaxbannaanida Soomaaliya waxaana ka digaynaa faragelin shisheeye oo lagu sameeyo arrimaha Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka. hadalkan ayaa u muuqda mid filla Soomaaliya ay ku doonayso inay ku wiiqdo awoodda xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. horeyna dowladda federaalka ee Soomaaliya ee madaxweyne Farmaajo uu hogaamiyo dalka waxay uga ceerisay wakiilkii gaarka ah ee qaramada midoobay oo qaabilsanaa Soomaaliya. tanina waxa ay noqonaysaa hanjabaad kale ee u direyso wakiilkii lagu soo bedelay kii la ceyriyay.
watahay daawadayaal markana aynu fiirino magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Hoose oo war la yaab leh maanta uu ka soo yeeray. Wararka laga helayo magaalada Jowhar ayaa sheegaya in gacanta lagu dhigay aabba dilay isla markaana webiga ku tuuray meydka wiil uu dhalay. dhacdadan ayaa xalay ka dhacday magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maanta boolisku waxa ay ku guuleysteen inay soo qabtaan gacan ku dhiglihii falkaasi geystay. booliska Hirshabeelle ayaa hadda gacanta ku haya waxaana la horkeeni doonaa cadaaladda si loo gudo dambiga uu geystay. dhacdooyinkan ayaa ah kuwa dalka ku yar walow ay dhacaan mararka qaarkood. qodobada kale aad ku daawan doontaan barnaamijkeena Warlalis Media aad ka daawanaysaana daawadayaal waxaa ka mid ah nin Soomaali ah oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka codsaday in uu la kulmo ninkii Soomaaliga ahaana uu iska diiday in uu la kulmo. haddaba ma adigu ma iska qasaarin lahayd fursadda noocaas ah in madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump uu ka codsado kulankan ayaa waxa uu sheegayna in laga codsaday Axmed Xirsi oo ah sayigii hore ee senatarada ka tirsan aqalka Mareykanka Congress-ka ee loo yaqaan Ilhaan Cumar oo ay mar hore kala tageen. Axmed Xirsi ayaa war qoraal oo Facebook-giisa ku soo qoray waxa uu ku yiri mucjiso nin adduunyo joogo maxaa aragti ku laaban. madaxweynaha Mareykanka ayaa casuumaad ii soo diray isaga oo iga dalbaday inaan la kulmo rag aan ogahay haddii ay fursadan heli lahaayeen intay sawir la soo galaan ay dhihi lahaayeen waxaan ka wada hadalnay arrimaha Soomaaliya. waxa uu ku maadsan yahay madaxweynaha Mareykanka kulanka ay ugu casuumay laakiin ma kulmi karno ayuu qoraalkiisa ku soo yiri. daawadayaal weli waxaad naga daawanaysaan Warlalis Media fadlan haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka aan Warlalis ku leenahay subscribe saar si aysan marnaba ku dhaafin wararka aan halkan soo dhigno. markana qodobkeena ugu dambeeya ee ciyaaraha Lionel Messi oo ah ciyaaryahan weyn oo ka ciyaara kubadda cagta ayaa maantay waxa uu ka baaqsaday tijaabo caafimaad oo la marsiinayo kooxda uu ciyaaro ciyaartoydeeda ee Barcelona. Messi ayaan ka soo qayb gelin waa tijaabada caafimaad ee ay kooxdiisu marayaan. Messi oo aad loo hadal hayo in uu ka tagayo kooxda Barcelona ayaa talaabadan waxa ay sii cadeynaysaa in uu doonayo inuu halkaas isaga tago ayna go'aan ka tahay. horey ayuu wuxuu u sheegay inuusan ka soo qayb gali doonin tijaabada caafimaadka ee kooxdu ay wada mari doonto. daawadayaal warkii aad ka daawanaysaan Warlalis Media oo aan idinkala socodsiinayay bartan YouTube-ka aynu ku leenahay intaasi ayuu nooga dhan yahay. fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar.